madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa markii ugu horeysay faahfaahin ka bixiyay khasaaraha weerarkii gelinkii dambe lagu qaaday hotelka Cascasey. Madaxweynuhu wuxuu sheegay in 26 qof ay ku dhinteen weerarka halka 56 kalena ay ku dhaawacmeen, isagoona sheegay in dadka ku dhintay ku jiraan qaar haysto jinsiyadaha dalalka 3 qof oo Canadian ah, 1 qof oo British ah, 1 qof oo American ah, 2 qof oo Tanzanian ah. madaxweynaha waxa uu kale sheegay in 2 qof oo u dhalatay wadanka Shiinaha ay kamid ahaayeen dadkii ku dhaawacmay kuwaas oo hadda xaaladooda ay wanaagsan tahay. madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa waxa uu sheegay in ragga weerarka soo qaaday ahaayeen 4 qof kuwaas oo mid kamid ah hotelka isku qarxiyay, mid kalena isaga oo nool ee ciidamada ammaanka ay gacanta ku dhigeen halka labada kalena ay toogasho ay ku dileen. weerarka ayaa ku bilowday weerar ismiidaamin ah oo fuliyay gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay kadibna kooxo hubeysan ayaa gudaha u galay hotelka la yiraahdo Cascasey. saraakiil ka tirsan maamulka magaalada Kismaayo ayaa waxa ay sheegay in dadka ku waxyeelooba weerarka ay ahaayeen dad degan hotelka oo ay ku jiraan xildhibaano iyo saraakiil kale. sida ay saraakiisha ay sheegeen, dadka ku dhintay hotelka ayaa waxa ku jiray gabar Soomaali Canadian ah oo journalista ah iyo waliba ninkeeda iyo wariye Soomaaliyeed oo ka tirsan telefishinka SBC isla markaana u shaqeynayay idaacadda Ergo. gabadha wariyaha ah oo Hodan Naaleeye iyo ninkeeda Fariid Jaamac Suleeman oo mar ahaa wasiirka ganacsiga ee Jubbaland ayaa ku jira dadka la xaqiijiyay inay geeriyoodeen. weerarka ayaa waxaa laga soo badbaadiyay qaar ka tirsan xildhibaanada halka ku sugnaa. Hodan Naaleeye oo ku dhalatay Soomaaliya sanadkii 1976 aase ahaateen nolosheeda inteeda badan ku soo qaaday dalka Canada, waa gabadh Soomaaliyeed ee ugu horeysay ee sameysay shirkad warbaahineed kadib markii ay sameysay television integration oo barnaamijyadiisa ay ku jiheysnaayeen Soomaalida. Al-Shabaab ayaa sheegatay mas'uuliyadda. xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa cambaariyay weerarka argagixisnimada ee jimcihii ka dhacay magaalada Kismaayo. xogayaha guud ayaa tacsi u diray qoysaska dadkii naftooda ku waayay weerarka, kuwa ku dhaawacmana waxa uu rajeeyay caafimaad inay helaan. xogayaha guud ayaa waxa uu sheegay in qaramada midoobay ay taageerayso sidii Soomaaliya mustaqbalka nabadgelyo looga dhalin lahaa. Cabdi Casaali Guuleed, Shabeelle TV.